السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان مبارك سو مقبول داوديال ميل كاستيات جوتان كسو دوادا برنامج كيني عيارها هلا مالك كاستيات كلا سعوتيان بوارتينا يوتيوب كي عيارها لا تستيب مغال عصب او حيصله سيبا كلمادا مانتيا وحان كوغي دونا كلمادا عاول فيلين لعيارو رير خمسلي waxaa soo kaleetaan eegi doona kulamada calaytu la ciyaaray ee Champions League loo gudbay cagayo semi-finalkia wow waxaa soo kaleetaan eegi doona Saadasha uu bixiyay laacibka kooxda kubadda cagta ee Barcelona Lionel Messi iyo dabcan warar kale goosgoos aad kala socon doontaa boorteena YouTube-ka ciyaaraha la testube heeska bedelin iminka channelka naga daawanaysid haddaad naga mid tahay like nagu dhiirigeli haddaad naga mid nahayna subscribe nosar saadu noqoto saacabadeena hadda soo kale aad naga mitayna like share comment waa mid muhiim ah daawadayaal meel kasta aad joogtaan Ramadan Mubarak iminka ku soo dhawaad wararkaasi oo sporty oo fidsan haddii aanaynu kulamada ugu dambeeyay Champions League siba loo gudbay xagga semi-finalka haddii aan eegno naadiga Liverpool ayaa waxay soo dhaweeyeen naadiga Real Madrid inkastoo ognaay in lugtii hore naadiga Liverpool laga soo badiyay 3-1 kulankii caawse ayaa la filayaa in naadiga Liverpool ay sameyn doonaan what a camp wow balse ma aysan noqonin ciyaartuna waxay ku soo ilaatay ever taasina waxay faa'iido noqotay wiilasha hogaamiyo tababare Zidane u gudbaan cagayo semi-finalka Champions League kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa moodaa inuu xaalku ku xumaaday iyagoo aad u niyad jabsan iskaga baceen garoonkii Anfield soo kale waxa oonahay in naadiga Liverpool ay helitaankooda ama soo bixitaankooda Champions League uu yahay mid aan la sadaalin kalin tababaraha kooxdaasi Klopp ayaa u taalo shaqo adeeg taasoo ah inuu ku dadaali doono sida kooxda kubadda cagta The Reds ay soo gudbi doonaan Champions League ayna ku dhameysan doonaan afarta kooxood ee ugu horeyso ee horyaalka dalkaasi Ingiriiska xaalada kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa noqoto mid muguro leh kadib markuu dhaawac halisa uu soo gaaray difaacooda Van Dijk kulankii kale oo la ciyaaray waa kulankii dhexmaray naadiga Borussia Dortmund iyo waliba naadiga Manchester City inkastoo in lugtii hore Etihad ay naadiga Man City ay labi hal direen kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund u horkacayo laacibkooda Haaland hase haatee kulanka xalaytu ayaa la filayaa in kooxda kubadda cagta Dortmund ay sameeyaan what a comeback balse maysan noqonin hase haatee kooxda kubadda cagta Borussia ayaa gool la hormartay hase haatee naadiga Man City gool kulaad u dhalay ciyaaryahan Mahrez ayayna ciyaartii ku soo barbardhaceen halka goolkii labaad ee guusha uu dhalay ciyaaryahan Foden laacib iminkaad moodaa inay ku tashato naadiga Manchester City waana laacibkii la dhihi karo deeqada uga la bacay laacibkii hore laacibka kooxdaasi ee kun Aguero ciyaar Foden ayaa da'yar u dhashay dalka Ingiriiska kuna sigtay macalinka Pep Guardiola inuu ka gado naadiga Borma ee ka tirsan dalka Talyaaniga hase haatee wuxuu go'aansaday in Foden uu la sii joogo kooxda laga yaabo inuu ku leeyahay mustaqbal wanaagsan iminka soo ay dhacday Foden wuxuu ka noqday ciyaartoyda inta badan ay iminka ku tashato naadiga Manchester City ahna kuwa ugu wanaagsan ciyaareedkan sidoo kale dabcan waxaan falaqeyn ku sameyn doonaa ama eegi doonaa Saadasha uu bixiyay laacibka naadiga Barcelona Lionel Messi ayaa ciyaaryahan ka tirsan kooxda kubadda cagta Barcelona ayna kooxdiisa ka xarib tireen naadiga PSG ciyaar ka tirsan Champions League iminka wuxuu saadaaliyay ama Saadashiisa uu dhigay labada kooxood oo laga yaabo inay ku kulmaan finalka Messi ayaa ciyaaryahan iminka 33 jira ayn uu soo kale tahay ciyaaryahanka ugu wanaagsan caalamka kana guuleysay lix kamid ah Ballon d'Or wuxuuna saadaaliyay in kooxaha Manchester City iyo waliba kooxda kubadda cagta Chelsea ay u gudbi doonaan finalka Champions League lagana yaabo uu yiri in labadooda mid kamid ay ku guuleystaan Champions League kooxda kubadda cagta Man City ayaa iminka kooxda ugu wanaagsan horyaalka Champions League haddii aad eegtid iyagoo aan wax kulan laga badin ciyaareedkan cusub 9 jeer ayay badiyeen halka hal jeerna ay galeen barbardhac sida awgeeda City ayaa u dhow inay ku guuleystaan Champions League waa sida uu yiri Lionel Messi dhan kale wuxuu sheegay in naadiga Chelsea soo kaleeto ay yihiin naadi aad u awood leh soo kaleeto laga yaabo inay ka badiyaan naadiga Real Madrid u gudbaan aga iyo finalka
waxaa sidoo kale Lionel Messi hadalkiisa sii raaciyay inkastoo aan loogeen kubadda cagta waxay noqon doonto kooxda kubadda cagta Real ayaa iminka kooxda ugu guulaha badan Champions League waxa uu sheegay in laga yaabo nasiibka inuu saacadiyo Real Madrid balse Saadashiisa ay tahay in Chelsea u gudboonto finalka Champions League kulamada caawo kulamada Reer Khamisleey aan soo kaleete eegi doona la ciyaar doono lugtii labaad ee loo gudbi doono cagaya semi-finalka Europa League waxay sarki doono haddii aan eegno Roma ayaa waxay soo dhaweyn doontaa naadiga Ajax Amsterdam inkastoo ay Roma ay leedahay 2 gool oo faa'iido halka kooxda kubadda cagta Ajax Amsterdam ay leedahay 1 gool Villarreal ayaa soo kale qaabili doonto naadiga Dynamo Zagreb halka Villarreal ay leedahay 1 gool oo faa'iido kooxaha kale sarki doono United ayaa waxay soo dhaweyn doontaa naadiga Granada halka kooxda kubadda cagta Slavia ay qaabili doonto naadiga Arsenal kulanka Arsenal ee Etihad kulanka Arsenal ee Fly Emirates yaad moodaa inay ku soo idlaaday 1-1 cawse kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa u baahan gool soo gudbaan cagayo semi-finalka Europa League naadiga Manchester United oo ku soo ciyaareen cagayo Spanishka ayaa waxa ay ku soo badiyeen 2-0 labada gool oo Manchester United waxa uu kala dhalay ciyaaryahan Rashford iyo Bruno Fernandes cawse naadiga Manchester United gurigooda Old Trafford ayaa u baahan inay gaaraan guur si ay u gudbaan cagayo semi-finalka Europa League sportiga 90